السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي ميلور بادجوكتين كسو دوادا channel كداوانا يسين ودكتور صدام حسين channel وأنكم هسنتين لايك سبسكرايب وشير كات فيديو هدا كيشين لايك and subscribe and share comment كاكي لوين ما انت محاين وضع فيديو أما ألا بصدنا لو برتين فيديو يا رياكشن ماذا أنك بحنيني ما انتنا أصلا وضع أرنا محاين وضع Ashanti loves school. She was rushing around because she doesn't want to be late. She doesn't ever want to get told off. I waved to her through the window and I was like, hurry up. So she's run off down the street. And then probably 10 minutes later, I got a call and I just ran down the road. I kind of ran and then I stopped. She was lying in the road. sidaad arkaysiin waxa waaye maamada hadlayso waxa waaye gabadhaasi hooyadeed marka gabadha magaceed waxa waaye Ashanti gabadha sidaad u jeedin waxa loo diray iskuulka ayadoo u socota ayay wadada ay ku dhacday lama garanayo ilaa hadda wixii koos gareeyay dhacitaankaas ay dhacday wixii keenana lama garanayo asoo daawano Not moving. My heart literally left me. She was a happy, healthy baby. I didn't see any reason to worry about her. sidaad u jeedin gabadha waxa loo sameeyay markay dhulka ay ku dhacday paramedics ka soo qaaday paramedics waxa waaye dadku u xil saaran emergency cases meeshii la keenay gabadha waa emergency room ka oo ER ka waaye marka waxa aad u jeedin qoorta mar walba qof uu dhaca ama fall ay tahay ama qof uu accident u gala waxa wanaagsan in qofka ayda loo xiro bahasha ayda kola neck Allah mar walba bahasha ayda waxay ka saacideynaysaa in qofkaasi uu cervicalkiisa spine-ka ama sida laf dureereedka lafta halkaas ka bilaabanaysa ilaa hoos aadaysa ay ilaalinaysaa si dhaawac zaid u gaarin marka dhaawacgaani hadduu qofku ku dhaco waxa dhici karta inuu paralyze uu noqdo oo spine-kaas hadduu qofka ay jugay ka gaarto inuu paralyze noqdo marka qofka baashaas looga xiraa qoortaan oo idil dhaqdhaqaaqayso idil bay ka ilaalinaysaa marka saad arkaysiin waxa waaye gabadhii dhulka bay ku dhacday lama garanayo wixii koos gareeyay wixii dhulka ku riday sababtii u dhacday sababtii u socday lama garanayo ilaa hadda hooyadan waxay leedahay gabadhan waa gabar iskuul jecel marka ER-kani dhaqaatiirta joogto gabadha haday historygeeda ay horaan u garanaayeen hadii kala waa isla wada arki doonaa laakiin qof walba patient markuu kugu cusub lagu keeno waa inaad maaragtay full history waxa waa inaad weydiisid waayo wax walba marka asal wada aragna dhaqaatiirtu wax bay codsadeen raajata baa loo diri doonaa wax baa loo diri doonaa dhiig baa laga qaadi doonaa asal wada aragna But at 2 years old something awful happened to Shan. Ashanti basically doubled in size overnight. She just ballooned. sidaad arkaysiin hooyadeeda waxay leedahay gabadha history hore xanuun hore ayaa jiro ay jirkii oo idil ay ka barartay jirkani bararka ayadu waxay leedahay kor ilaa iyo hoos cagihi wajiga oo idil ilaa iyo cagihi hoos oo idil kulli ka wada barartay marka anaga ma garanayno bararkaas wixii keenay laakiin hadan dhankeyga ka hadlo dhakhtarnimo ah bararka oo imaanaya mostly wuxuu ka imaadaa 3 meelood oo qofka ku dhacay jirku idil iska soo wada baraa kow wuxuu ka imaan karaa wadnaha laba wuxuu ka imaan karaa beerka saddex wuxuu ka imaan karaa kiliyaha haddii kiliyaha jug ay ka gaarto uu imaanaya ama dhaawac kiliyaha jira haddii wadna xanuun ama wadnahaaga uu fail gareeyo way imaanaysaa haddii liverkaaga uu fail gareeyo way imaanaya haddii uu cudurro kale ay jiraan oo maaragtay sida kansarka oo qofka qabo ama waxyaalo kale ay jiraan sida qofka HIV/AIDS ka qabo waxyaalo badan haddii jiraan way imaanayaan ama haddii qof jugta halug barar oo halug hadduu jiro waxa waaye mostly waxa keena either trauma inuu qofkii lugta jug ugu dhacday iyo in maaragtay Becker cyst wax la lahaa jirto oo cyst ahaan ah iyo maaragtay DVT wax la dhahayo xinjiraha lugta kala halka lug ah bararkaas kuwaas baa keena laakiin labada lug iyo jirku idil soo wada bararo waxa keenaya saddexdaas xibin oo dhaawac uu gaaray ama shaqayn howlgab uu ku dhacay saddexdaas xibin oo howlgab uu ku dhacday ayaa keeni kara sad u jeedin dhakhtarkii uu soo laabtay wuxuuna la soo laabtay jawaabtii raajada dhiigagii
iyo wixii oo idil MRI-gii iyo CT scan-kii oo idil lagu wada sameeyay baaritaankii oo idil lagu wada sameeyay ayuu la soo laabtay marka baaritaankani the only thing oo ka soo baxay halka shay oo kaliya oo maaragtay ka soo muuqdo baaritaankani waxa waaye inay gabadhii ay garabkii ay ka jabtay maadaama jabkaasina uu keeni hayay dhicitaankii ay dhacday marka jabitaankan garabka uu kala baxaa waxaa jirta shoulder fracture wax la dhahayo oo garabkani uu baxaayo iyo dislocation iyo laftan tani oo jabta marka dislocationka laba buu kala baxaa mid wuxuu noqon karaa inuu maaragtay hor ahaan u soo dislocationka waxa waaye kala bax leh waaye kala baxgaas inuu hor uu soo aado laftii ee meesha laga rabay ka soo baxdo iyo inay gadaal aado iyo laf jabkana waxa waaye inay lafaha meesha ku yaalaan oo idil ay dhaawac u gaaro oo tirib uu gala ama jab uu gala marka tanna waxay noqon kartaa inay dhaxdan ay ka kala jabtay marka wuxuu leeyahay waxa waaye waxa u gelinaynaa bahal oo maaragtay waxaas oo idil ka celiso oo jabkaas ay gacanta isaas ugu qabsan karta sling ahaada ama wax kale ahaada wada arki doonaa ama sling ama wixii uu ahaadaba oo ka celinaysa maaragtay ama kabitaan haday tahay marka labada aragna gabadha hooyadeedna waxay leedahay markii hore la keenayay oo isbitaalka mar hore ay u keentaa jirto dhibkii markay saas ay jirkii idil ugu soo wada barartay waxa la xaafada aada jawaabta waa la siinaa markaas kadib muddo saacadooyin kadib waa la soo wacay markaas kadib ay noqotay in lagu arko dhibaatada oo kelida labada aragna wixii ka soo baxa iyo wixii la dhihi doono A couple of hours later saying, bring her back now. And push yourself up. Push yourself Ashanti, up. Sit up. Look at me, darling. Ashanti. Jan? Okay. Her kidney function had gone wrong and it wasn't processing her urine as it should. marka maamada waxay leedahay waxa waaye gabadha hooyadeed waxay leedahay waxa waaye markii la dhahay isbitaalka ku soo laabo waageeda ah kilidii ayaa howlgabtay howsha kiliyaheeda ay qabanayaan waxaa dhici karta inuu dhaawac uu ku dhacay kiliyihii ama waxaa dhici karta inuu maaragtay oo infection uu ku dhacay kiliyihii marka kilida haddii howsheeda ay gabto waxaa kuu sheegaya waxaa waaye baaritaan la dhahayo urea electrolyte function ama kidney function test wax la hayo jirto kidney function testgaas wax badan baad ka arkaysaa haddii ay electrolyte-ka ay hoos u jiraan haddii urea-ga uu kor jiro ama hoos u jiro haddii creatinine-ka shaqadeed see waaye marka wax kale ay leedahay waxaa waaye pressure baa gabadha ku dhacay blood pressure-ka ama dhiig karka ayaa ku dhacay oo kor aaday dhiig and her blood pressure shot through the roof, dangerously so. I just had overwhelming panic. On 3. marka waxa la sameynaya waxa waaye sariirta baa kor looga soo qaadi hayaa sidii oo maaragtay bahashay afku haysato waxay noqon kartaa kow oxygen ama waxa waaye bahashay oo maaragtay xanuunkaasi ay ka ilaalinayso inhalation ahaan u qaadanaysa mid kale sariirta wax kor looga soo qaadaya waxa waaye levelkii 45 degrees baa laga soo dhigaa sidii ay neefstii iyo maaragtay jirkeedii uu neef fiican oxygen fiican uu ka helo because qofka hadduu sidaa u jiifo uun xanuunsan yahay kiliyaha ama meel kale uu ka xanuunsan yahay waxyaalo badan baa la socdo oo dhibkaasi keeni kara Then on a massive amount of steroids to control this thing. It's okay, sir. Keep breathing, keep breathing. sidaan in sheegay bahasha afka ee gashanaysa waxaa waaye gaaskaas wuxuu noqon karaa inuu inhalation ahaan ay u qaadanayso afka ay ka qaadanayso maaragtay gudaha u galaan laakiin wax xanuun baa biyo la jiro ama haddii kale waxaa dhici karta inuu oxygen uu yahay but oxygenka kiisa sidaas uma yaalo waxaa waaye sida kale but kan waa either two wuxuu noqon karaa dhaqaatiirta si kale siyaabo badan u isticmaalaan jirto bahasha iyada kow waxay noqon kartaa inuu oxygen ay ka qaadanayso labo waxay noqon kartaa inay inhalation oo xanuun baabiyo inhalation ahaan lagu siinayo maadaama ay xanuunkaasi marka mid kale ay leedahay waxa waaye hooyadeed waxay ku qaadatay 2 usbuuc in gabadhan laga dhigo stabilized oo maaragtay normal ay ku soo laabato Okay, and to the next, we're in hospital with this unknown disease that, how do you fix it? Keep breathing, sir. Every day was a blood test. And then we found out it's nephrotic syndrome, which I'd never heard of before.
baaritaamihii kadib oo maalin walba lagu sameynayay maaragtay 2 isbuuc gudahood baaritaamihii kadib waxaa soo baxay in gabadhan cudur la dhahayo qabto nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome macnihiisu waa maxay? Nephrotic syndrome waxa waa keliyihii ayaa injury ku dhacday. Injury-gan wuxuu noqon karaa waxyaalo badan. Marka nephrotic syndrome-kan wuxuu ka kooban yahay 4 shay ama 3 shay. 1 kaadidii oo lagu arko protein badan. 2 in uu qofkii maaragtay waxa la dhahay hypoalbuminemia lagu arko. Hypoalbuminemia waxa albuminka bacaan la dhahayo jirta albumin oo jirkaaga ku yaraado. Marka hadduu yaraadana waxa dhici karta inuu protein ahaan uu kaadidii u soo raaco. 3 qofkii inuu jirkiisa idil ka wada bararo wajigii, lugihii, gacmihii, meel walba uu ka wada bararo. Marka nephrotic syndrome-kan wuxuu shabahaa nephritic syndrome. Nephritic syndrome-ka asagana waa sidan laakiin wax yar uu ka duwan yahay, pressure baa la socdo laakiin way is shabahaan. Marka maamada waxay leedahay gabadha waxa lagu arkay nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome-kan weligeed ma maqalnay leedahay laakiin waa wax iska caadi oo ilmaha lagu arko. waxaa dhici karta ilmaha qaarkood in lagu arko 8 sano ka yar in lagu arkaa dhici karta. kuwa qaarkoodna ayagoo 8 sano ka weyn in laga helaa dhici karto sida hadda camal gabadhan. waxaa dhacaya markaa kadib nephrotic syndrome-kan waxyaalo badan buu ayaa keeno. 1 wuxuu noqon karaa maaragtay infection horaan kugu dhacay kelidii ay horaan dhaawac u gaaray iyo wax genetic oo maaragtay qofkii la xiriiro autoimmune ah inuu iska dhaco. marka mostly wuxuu kala baxaa maaragtay qaybo badan buu leeyahay laakiin wax lagu ogaanayo dhibkan inuu jiro waxa waaye kaadidii oo protein lagu arko, cunugii oo ama bukaankii oo maaragtay asaga dhan jirkiisa wada bararo iyo intaas in ka badan in lagu dhibkani waa inaad ogaatid in uu lahayn daawo toos ah. qofka nephrotic syndrome-ka qabo waxa uu lagu daaweeyaa steroidka waxa waaye bararkaas iyo waxaas uu ka yareynaya iyo waxyaalo la dhahayo diuretics-ka, daawooyinka diuretics-ka la hayo. Diuretics-kana waxa waaye biyahaas badan oo bararkaas badan qofka jirkiisa oo cunuga ama gabadha ama wiilka jirkiisa soo wada bararay biyahaas ay ka saaraysaa through kaadida. Nephrotic syndrome waa inaad ogaatid cunugani wuxuu wadayaa daawadan 8 isbuuc kadib haddana dhakhtarkiisa haddana wuxuu u qorayaa isbuucyaal kale inuu wado. marka mar walba waxaa dhici karta ilmaha in siday usii weynaanayaan ama intay sii korayaan waxaa dhici karta inay maaragtay dhibkii uu kasii yaraado laakiin wax guaranteed ah ma aha. saxaabay waxaan soo gaarnay barnaamijkii gabagabadii iyo gunaanadkii barnaamijka. meel walba joogtiin fadlan like, subscribe iyo share-ka. haddaad videogan aad ka heshayna comment hoos nooga reeb. sidaa iyo nabadgelyo.